Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaad kanaalka Afifa Warsame. Waxaan rajeynaa inaad caafimaad qabto oo aad faraxsan tihiin adiga iyo qoyskaaga. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago soo koobida iyo micnaynta The Allegory of the Cave. Allegory of the Cave waxaa qoray Plato ayaa qoray, waana tusaaleyn uu ku tusaaleynayay yacni adduunka qaabka uu u samaysan yahay iyo sida dadka adduunka ku nool ay maaragtay aqoonta u raadsadaan mase aqoonta iyo waxbarashada ay ka kala aaminsan yihiin. Marka koowaad waxaa isku dayaa inaan soo koobo sheekada inaan soo koobo, kadibna waxaa isku dayaa inaan sharaxo mise micneeyo waxyaabaha uu kala jeeday. Marka koowaad bal aan bilaawno soo koobida allegoryga. Bal qiyaas adigu waxaa jira godka waxaa ku jiray maxaabiis. Maxaabiistaasi wax dhaqdhaqaaq ah ma aysan samayn karin. Madaxooda iyo lugahooda iyo gacmahooda ayaa hal silsilad la iskugu xiray. Gadaashooda maysan fiiri karin, dhinacoodana maysan fiiri karin. Kaliya waxa ay awoodeen waxay ahayd inay hortooda bis ay fiirshaan. Ilaa maalintii ay dhasheen godkan ayay ku jireen. Weligood bannaanka godka maysan uga bixin. Maxaabiista gadaashooda dab ayaa ka shidan. Dabka iyo ayaga inta u dhaxaysa waddaa ku taalay. Waddadaas waxaa maraya dad xambaarsan alaabo kala duwan, yacni dhagaxyo, xayawaano, alwaaxyo, yacni waxyaabo kala duwan ay dadkaas u xambaarsan yihiin. Bal adigu sawiro waxaad ka mid tahay maxaabiista. Hal xabba oo ka gadaaleeya ma arki kartid, dhinacaagana ma fiirin kartid sidaan soo sheegay. Kaliya wajiga darbigaaga hortaada ah ayaad fiirin kartaa. Waxaad arki kartaa hooska alaabta ay sidaan dadka xambaarsan, yacni dadka maraya adinka iyo dabka inta idiin dhaxeeya dadka maraya hooskooda arkay. Sababtoo ah markuu dabku dadka ku dhaco hoos ay samaynayaan, hooskiina waxa uu ku dhacaa darbiga adinka in ka horeeya. Adinkuna marka waxaad arkaysaan hoosaska alaabtaas ayaa arkayto. Haddii aadan weliga arag shayga saxda ah, waxaad rumaysanay inuu hoosku yahay shayga saxda ah. Tusaale ahaan, weligaa allaha geel maadan arag, laakiin dadka gadaashiina maraya geelay wadaan. Adigu markaad geela hooskiisa aragtid kaa horreey, waxaad aaminay hooskaan inuu geela saxdaa yahay. Oo maba aaminsanid geel nool oo lugale wax cunaayo wax cabaa inuu jiro ma aaminsanid. Hooskaan bisa aaminsanta. Hooskaana geel u taqaanaa. Marka maxaabiistu waxay cayaarayaan. Ciyaartaas waxa waa yacni adigu qiyaas bal hooska imaan doona. Ayaga dhexdooda waxay leeyihiin okay hooska imaan doona qiyaas waxa uu yahay sheeg. Kadib qof kasta waa isku dayaa. Dadka qaar hooskii ma aqoonayaan, ma sheegi karayaan waxa uu yahay, laakiin kuwa qaaraa garanaya. Maxaabiista kuwa hooska garta waxaa loo yaqaanaa inay yihiin kuwa ugu caqliga badan. Waa ma aragta saa'idaa loogu sacbiyaa, yacni waa laga heebaystaa maadaama ay qiyaastooda fiican tahay. Marka mid ka mid ah maxaabiista ayaa baxsada, silsiladihii ayuu iska jaray, bannaanka ayuu godka uga baxay. Qorraxdii ayaa indhaha ka xanuujisay sababtoo ah weligiis ma uusan arag qorrax caadiya iftiinkeeda ma uusan arag. Iftiinka kaliya uu arki kara waxay ahayd dabka ka gadaaleeya iftiinkiisa. Marka indhihiyaa xanuunay. Kadib waxa uu arkay sheeyadii uu hooskooda kaliya godka ku dhex arki jir oo xaqiiqo ah. Tusaale geelka hooskiisa bisuu arki jir, laakiin markuu bannaanka ku soo baxo wuxuu arkay geel nool oo biyo cabaa badar cunaayo oo nolol caadi ku jiro. Kadib wuu yaabay. Kadib waxa uu bilaabay in uu ma aragta safar galo. Safar uu isku dhahaya yacni xaqiiqooyinka ogaa. Waxyaabihii uu hooskooda arki jiroo dhan xaqiiqooyinkooda ogaa ayuu is iri marka. Kadib markuu xaqiiqooyin badan soo ogaaday, uu ogaaday wixii uu markii hore aaminsanaa inay been ahaayeen oo uu hoos kaliya arki jiray oo hadda uu arka sheeyadii dhabtooda uu arkay. Wuxuu bilaabay inuu u soo laabto godkii. Godka asaga muuse rabin inuu u soo laabto, laakiin wuxuu is yiri asxaabtaada ku jirta ka caawi inay bannaanka u soo baxaan oo ma aragtay meesha ay ku jiraan ka soo badbaadi si ay xaqiiqada u arkaan. Wuxuu ku yiraahday war bannaanka u soo baxa, xaqiiqda bannaanka ay taalaa. Waxaan anaga aan arkayna waa hoos. Adigu waxaan geela u taqaanid geela hooskiisa waaye, laakiin geel noola bannaanka joogay bannaankana keena. Laakiin ayagu wayba diideen, maba rabaanba inay baxaan. Xitaa waxa ay isku dayeen inay dilaan oo ay dhibaateeyaan. Sababtoo ah ninkan waxay ay aaminsanaayeen ma aragtay uu ka soo dhex galay. Marka intaasay ku saabsan tahay tusaaleynta aan u imaano bal sharaxa sheekadan aan u imaano. Godka waxa uu u taagan yahay dadka jahliga ah.
oo aaminsan in aqoontu ay ku timaado waxa ay arkaan ama maqlaan, yacni waxa ay shantooda dareemo ku dareemaan. Inta badan haddii aad xaqiiq moodid keliya waxa aad aragto mise aad maqasho mise waxa aad taabato, waxa ku haya waxa ay tahay fahan darro iyo indho la'aan xaqiiqeed. Oo xaqiiqda sida dhabta ah uma arki kartid, umana maqli kartid, umana taaban kartid. Sidoo kale silsiladaha ku xiran dadka oo ka celinayay inay dhinacyada fiirshaan waxa ay u taagan yihiin waxyaabaha, yacni sharuudaha mise nidaamyada dadka u diida in ay wax baaraan mise in ay wax ka baxsan banaankooda ogaadaan. Nidaamyadaas waxaa ka mid ah dhaqanka ka mid ah, nidaamka dowladdaada ka mid ah, caadooyinka ka mid ah, khuraafaadka ka mid ah, yacni wax kasta oo nidaam ah oo bulshadaada kugu shubtay waa kuu silsilad oo waxaa moodaysaa in waxaas xaqiiq ka baxsani aysanba jirin. Silsiladahaas ilaa aad jabisa ma ahane, yacni xaqiiqda banaanka ogaamaysid. U imaaw hooska alaabaha oo ay arkayaan maxaabiistu waxa uu matalaa fahanka mise perception-kaaga. Haddii aad moodo wixii aad aragto in ay xaqiiqo yihiin, macnaha hoos ayaad xaqiiqo ka dhigatay. Hooskuna xaqiiqo ma noqdo. Plato waxa uu leeyahay waxaa jira laba fahan, mid aan ka helno dareemaheena iyo mid ka yimaada ruuxdeena. Fahanka dareemaha ka yimaada waa muuqaalka adduunka, sida aad arag ahaan iyo maqal ahaan aad ka aaminsantahay mise ka fahansan tahay. Adduunku maahan xaqiiqiyan. Adduunka aad arkayso mise aad maqlayso maahan adduunka saxda ah. Xaqiiqda ma ogaan kartid, mana fahmi kartid adigoo adeegsanaya dareemahaaga shanta ah. Laakiin xaqiiqda waa ogaan kartaa marka ruuxdaada aad adeegsanaysid. Oo fahanka ruuxdaada ka yimaada mise waxyaabaha inta si ruux ahaan iskaga su'aasho oo aad u dharaan dhiriso aad fahanto ayaa waxay ku jiidayaan in aad xaqiiqda aad fahanto. Sida badan waxa aan maqalno ama aan aragno wax xaqiiqo ah maahan, laakiin xaqiiqada waxaan helaynaa marka aan ka gudubno oo aan diidno waxa aan maqalnay iyo waxa aan aragnay oo aan u gudubno fahan ruuxeed aan u gudubno, yacni fahan ruuxdeena ka yimaada marka aan u gudubno. U imaaw ciyaarta maxaabiistu ay ciyaarayeen oo ahayd balqiyaas. Ciyaartaasi waxa ayna tusee yacni sida dadka qaar aan ugu malayno in ay u aqoon badan yihiin oo u caqli badan yihiin. Oo qof kasto maanta marka aragna dhahayda Soomaaliya waxay xorriyadda qaadatay 1960kii waxaas la sameeyay. Yacni ciyaarta noocaas waxay dhacday xilligaas. Yacni dadka xogtaas haya waxaan u haysanaa dad caqli badan, dad aqoon-yahan ah, dad xog ogaal ah aan u haysanaa. Laakiinse ma ogin xogtaas qaabka ay ku heleen. Sababtoo ah qof kasta xogta uu og yahay waxay noqon kartaa xog la dhisdhisay. Oo qof kasta xogta qaybta diidan yahay ayuu ka soo tagaa, qaybta uu rabo ayuu soo qaadanaa. Wuxuu qof kasta xogta uu hayo ku salaynaa fahankiisa, waxa uu rabo iyo waxa uu yaqaan oo madaxiisa ku jiro ayaa uu fahmaa, sida uu rabana waa uu u fahmaa. Laakiin qofna ma jiro inta badan hadduusan qofkaasi dareensaneen yacni xagaldaaciisa mase haddii uusan dareensaneen xashada uu samaynayo. Inta badan qof kasta yacni xogta yar ee asaga qimbigiisa mise noloshiisa mise rabitaankiisa ku jaango'an ayuu soo qaataa uu ogyahay. Taas waxaa sii dheer waxaa laga yaabaa qofka xog ogaalka u haysato in uu yahay qof asaguba hoos xaqiiq u arka. Yacni qof wixii uu arkay mise wixii uu maqlay kuusoo sheegaya. Micnaha waxa ay tahay yacni hooska ayuu arkay. Hooskuna inta badan xaqiiqa ma noqdo. Yacni waa wax lagu qoslo inta badan markii aan dad noocaas ah aan u aamino inay yihiin dad caqli badan. Sababtoo ah xogta iyo aqoontu maahan kuwa dareemahaaga shanta ah aad ku hesho. Yacni dareemahaaga shanta ah waad ku ogaan kartaa. Laakiin wax kasta oo dareemahaaga shanta ah aad ku ogaatid, maskaxda ka dambaysa. Maskaxduna qaabka ay rabtay u fasirtaa. Yacni dhanka ay rabtay u dhigtaa. Haddii aadan la imaan fahan ruuxeed, haddii aadan la imaan isa su'aalid, haddii aadan la imaan falanqayn iyo gorfayn, haddii aadan waxaan dhinac walba aadan ka fiirin oo maskaxdaada aad inta taam yeesho, yacni aad ka dhigto maskaxdaada wax miyir qabo oo aad ka hortagto yacni qaabka maskaxdaadu ay rabto ay waxa u fasiranayso. Kadib u imaaw cararka maxaabiiska. Maxaabiiska cararay micnaha waxa ay u taagan yahay faylasuuf.
inta badan waxaan dhahnaa faylasufyadu waa waalan yihiin, dad yacni madax maray waaye oo maskaxdoodu maaragta qaabka loo shaqeyda waxaas ayaan dhahnaa. Laakiin faylasufka waa qofka raadiya aqoonta ka baxsan godka uu ku nool yahay. Yacni aqoonta ka baxsan waxa dareemadiisa shanta ah ay dareemaan. Qof faylasuf ah haddaad maanta war u sheegto, warkaas aad u sheegtay hore ma qaadanaya, laakiin boqol su'aal oo dhinac kasta ah ayuu isweydiina si warkaagaas uu u ogaado xaqiiqanimadiisa. Qof faylasuf hadduu maanta wax arko, waxaas hore kama qaadanaya, laakiin dhinacyo badan ayuu ka fiirinaya. Sidoo kale, qorraxdu waxa ay u taagan tahay xaqiiqada iyo aqoonta ku timaada yacni falsafad ahaan, falsafa isi su'aaleed. Sababtoo ah qofka bilaadanka ah markuu xaqiiqo ka qarsooneed u arko, wuu naxayaa, yacni wuu argagaxayaa. Sidaas si la mid ah ninka oo godka markuu ka soo baxo qorraxda indhaha ay ka qabatay. Yacni runta way adagta markii lagu dhahay qofna ma rabo inuu runta saxda ogaado, inuu xaqiiqada ogaado iyo aqoonta saxda. Inta badanna dadku ma ayba xamili karaan. Oo marka uu soo noqday, uu godka u soo noqday, soo noqoshadiisas waxay matalee in dadku ma aragtay aysan rabin inay xaqiiqada arkaan oo ay ka cabsanayaan. Sababtoo ah waxa ay diidayaan inay ka baxaan marxaladan xasiloonida ah oo sawirashada ku salaysan iyo qayaaliga yacni ku salaysan. Qof kasta wuxuu rabo nolol degan, xasilan, qayaali ku salaysan inuu ku noolaado. Waxa uu rabo inuu maqlo, waxa uu arko inuu arko, siduu rabo inuu u fasiro, yacni inaan la isdhibin oo qofna ma uu rabo inuu xaqiiqada banaanka ah uu fiirsho. Marka intaasina waxay ahayd sharaxaada alagoriga. Intaan hore u qaada bal. Ani muuqaalku maahan xaqiiqada saxda ah ee shayga ama qofka saxda ah. Haddaad maanta qof aragto muuqaal dhammaystiran leh, waxaa laga yaabaa inaad u malayso inuu qofkaasi qofka xaqiiqada u yahay. Maya, maanta waxaa jiro muuqaal kasto qofeed waa la bedel, wax dhammaystiran ma. Maanta wajigaa la qalanaa, sankiyaa la qalanaa, indhihiyaa wax laga samaynaa, waa la is cadaynaa, waa la iska larinaa, yacni nooca la iska dhigaa. Marka adduunka qaabka aad u arkaysa ma ahan. Qofka markaa aragtana ma dhihi kartid qofkaasi wuu qurxan yahay iyo wuu fool xun yahay ma dhihi kartid. Sababtoo ah ma ogid waxa quruxdan ka dambeeya, waxa qofkaani uu soo sameeyay, sida qofkaani uu isku naashnaashay, yacni waxa ogtahay ma. Quruxi warkaa tilmaami karta waxay tahay marka muuqaalkaaga inta ka gudubtid aad qofkan ruuxdiisa gaartid ah si ruuxiyan ah ula sheekaysato. Inta badan muuqaalku waa wax la dhidhisay la soo koobay, qof kastana waxa uu ka hor imaana soo diyaarsha meesha ugu dambeysa taagan. Sidoo kale wax kastoo lagu sheego run ma ahan. Ka fikir yacni wax kasta markii lagu yiraahdo waxaasi saas waay sababta waxaana lagu dhahayo hadalka qofkan uu dhahay danta uu kala haan karo, yacni waxaasoo dhan ka fikir. Waxaad ka fikirtaa hadda sababta gabdhuhu ay ugu socdaan si iskala jilcin ah oo laafyo ah, nimankuna ay si adag ugu socdaan. Ma waxay kula tahay taas inay tahay xaqiiqo ku salaysan saynis ahaan? Yacni ma ogi bal isweydii in gabdhuhu ay saas isku qaloocshaan nimankuna ay sida adayga ay u socdaan ma xaqiiqo saynis ku dhisanaa. Ka fikir bal adigu kadibna baar. Sidoo kale waxyaabo badan oo waxaa jira aan iskaga qaadanay si dabiici ah oo aanan waxba su'aal iska weydiin. Ka fikir bal Soomaaliya. Soomaaliya ma wax xaqiiqa ah ma jira? Turki ma xaqiiqa? Itoobiya ma xaqiiqa? Yacni waddan kastoo maanta jiro inuu jiro ma wax xaqiiqa ah. Mise waddankaani waxaa jiro meel la soo dhisay iyo in la dhoodhoobay iyo si artificial in loo sameeyo oo dadka looga dhaadhacshay yacni inuu waddankaani waddankooda ma wax saas ah jiro. Ka fikir bal. Ka fikir nidaamka Soomaaliya hadda ay ku salaysan tahay 4.5 ah. Ma wax xaqiiqa ah oo ma sida naloo sheegay oo naloo yiri 4.5 wax loo qaybsadaa ayaa ma aragtay wax loo qaybsadaa. Ma isleedahay yacni waxyaabo waxaa jiro 4.5 ka baxsan, qaab ka baxsan in wax lagu qaybsado mise qaab ka hooseeya. Ma isleedahay in yacni aysan sida nal kugu sheegay aan waxba loogu sameyn. Ka fikir dhaqanka Soomaalida. Asalkiisa xaguu ka yimid. Yaa aasaasay. Maxaa loo sameeyay? Sidaa la iskugu raacay. Ma kula tahay in dhaqamadaas ay hirgaleen ayadoon qof la dilin, ayadoon dhiig la daadan inay dhaqamadaas hirgaleen ma kula tahay? Yaa og. Ka fikir wadanimada. Ma dareen dhabaha, ma wax la abuuraa, ma wax loo dhashaa, ma wax la isku beeraa. Ka fikir. Yaa og. Haddii aadan ku dhalan lahayn Soomaaliya dhexdiisa oo aadan Soomaaliya weligaa maqli lahayn yacni dhiig Soomaaliya kugu jiro laakiin weligaana maadan maqlin wadani ma ahaa lahayd dalkiisa jecel. Yaa og. Yacni isku day wax kastoo maanta lagu sheego iyo system kasta mise nidaam kasta oo maanta jira inaa wax su'aal ah iska weydiiso. Yacni haddaad su'aal iska weydiiso aad jawaab hesho inaad dadka u sheegto oo la qayliso la wadaagto dadka yacni muhiim ma ahan. Laakiinse
waxaa muhiimadu ay tahay waxay tahay wax dabiici ah inaysan jirin oo cilmiga bulshada ku saabsan. Waxaan ku dhahay xitaa wax dabiici ah oo cilmiga bulshada ku saabsan ma jiraan. Waxaa laga yaabaa wax kastoo in la yiraahdo gabdhuhu marka ay saas sameeyaan, gabdhuhu saas ay sameeyaan, wiilashu saas ay sameeyaan, gabdhuhu saas inaa waxyaabahaas aaminto. Laakiinse su'aal iska weydii wax kastoo lagu sheego, wax kastoo aad maqasho, su'aal iska weydii. Waxaadna ogaataa wax kasta waa la farsamee, wax kasta waa la qurxiyo, wax kasta waa la dhoodhobo, wax kasta propagandayna loo sameeyo. Marka Allegory of the Cave intaas ku saabsanaa wixii kale oo idin dhihi karana waa idin dhahay. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaan marar kale aan isla kulanno muuqaalo noocaan aan ku wada kulanno. Waa ku mahadsantahay joogidda iyo kusoo biirida kanaalka Afifa Warsame. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.